xoogagga iskacaabinta ee Falastiiniinta dhankoodana waxay sugayaan inay dhankooda ay helaan liiska maxaabiista Israa'iil ay sii daynayso iyagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in Israa'iil mar kale aysan dib u dhigin tirada maxaabiista ee la sii daynayo sidii dhacday markii hore. iyadoo sida ay tahay xoogagga ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dhaqangelinayaan waxaana la isweydiinayaa suuragal ma tahay dalabaadkii ugu dambeeyay dhinaca Israa'iil ka yimid in la dhaqangelin doono ka oo ahaa in goob dadweyne isugu yimaadeen maxaabiista aan lagu soo bandhigi doonin in sidoo kale aan hadiyada la siin doonin in maxaabiista la sii daynayo iyo dhammaan shuruudihii ay ka caroodeen Israa'iiliyiinta markii axadii la soo dhaafay wacdara ay dhigeen xoogagga iskacaabinta sidoo kalena ay soo bandhigeen awoodooda. waxaa kaloo la isweydiinayaa xoogaggu miyay cashar ka baran doonaan isku dhexyaacii dadweynaha markii ay sii daynayeen saddexda maxaabiista ah Israa'iiliyiinta toddobaadkii hore. sida qorshe uu yahay 16 maalin marka dhaqangal uu yahay heshiiskan waxaa laga wada hadli doonaa wejiga labaad. wejiga koowaad 42 maalin ayuu soconayaa 33 maxaabiis Israa'iiliyiin ayaa lagu daynayaa in ka badan 2,000 oo maxaabiis ah oo Falastiiniyiin waa la soo dayn doonaa. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa kulamo kala duwan la yeeshay saraakiisha dhinaca amniga ah ee Israa'iil isaga oo kala hadlaya xaaladda guud iyo isbedelada ka dhacaya dhinaca Jenin halkaas oo dagaal aad u qaraar uu ka dhacayo. tiradada ayaa ku dhintay kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii Israa'iiliyiinta ay hareereeyeen Jenin iyo deegaanka kale ee Burqin lagu magacaabo. dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo xalay khudbad jeediyay waxa uu ka digayaa in la carqaladeeyo heshiiska ama laga baxo waxaana uu yidhi taasi waxay keeni doontaa caqabad weyn waxaanay sababi doontaa buu yidhi dhibaatooyin dhowr ah halka xoogagga iskacaabinta dhankooda ay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin dhaqangelinta wejiga labaad ee maxaabiista la isku dhaafsanayo maalinta biri ah. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku booriyey ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Trump u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff kaasoo la rumaysan yahay in door weyn uu ka ciyaaray heshiiska cadaadisna uu duldhigay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. isagoo khudbad jeedinaya xalay madaxweyne Trump ka hor shirka Davos loogu magac daray ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in xabajoojinta bariga dhexe ahmiyad gaar ahaaneed ay siinayaan isaga oo ka digay suuragalnimada in heshiiskaasi laga baxo ugu yaraana la carqaladeeyo qorshihii ama waxyaabihii lagu heshiiyey. ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa dhankiisa waxa uu shaacu ka qaaday inuu cusboonaysiinayo siday kaga go'an tahay dib u soo laabashada dhammaan maxaabiista looga haysto gudaha magaalada Gaza. waxaa arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo oo sida la sheegay qaar ka mid ah qoysaska maxaabiista ay ka maqan yihiin ay xalay isku dayeen inay dhigaan banaanbaxyo waaweyn oo ka dhacaya magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil halka wararka qaar ay sheegayaan in xarunta ugu weyn wasaaradda gaashaandhigga ee Tel Aviv ay ku leedahay ay tageen banaanbaxyaashii ugu badnaa kuwaas oo dalbanaya in la dhammaystiro marxaladaha kala duwan ee maxaabiista la isku dhaafsanayo. maxaa yeelay qaar ka mid ah maxaabiista ayaa la sii daynayaa ehelada kalena way ka soo horjeedaan arrintan. madaxweyne Trumpna waxa uu leeyahay waa in gebi ahaanba heshiiskaasi aanan la carqaladaynin. dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in shirkada dhanka amniga oo laga leeyahay dalka Mareykanka ay tegi doonaan gudaha magaalada Gaza. wargeysyada New York iyo Axios ayaa warbixintan daabacay. sidoo kale telefishinka Al-Carabiya wuxuu leeyahay saraakiil ka socota shirkadaha dhanka amniga ah ee dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay qiimeyn ay ku sameeyaan gaadiidka dadka barakacayaasha sida ee ku laabanaya koonfurta magaalada Gaza. sida wararku ay sheegayaan warbaahinta Mareykanka ayaana macluumaadkan ilaa shalay baahinaysay. wargeyska New York Times iyo kan kale ee Axios lagu magacaabo ayaa shaaca ka qaaday dib u soo laabashadaas inay bilaaban doonto maalmaha soo socda iyadoo wararka qaar ay sheegayaan shirkadaha Mareykanka iyo kuwa dowladda Masar ee dhanka amniga ee arrintaasi iska kaashan doonaan. sida wararku ay sheegayaan arrintan waxay qayb ka ahayd baa layiri heshiiskii dhowaan lagu gaaray magaalada Dooxa ee u dhaxeeyay xoogagga iskacaabinta iyo sidoo kale Israa'iil waxaana garwadeen ka ahaa Mareykanka, Qatar iyo dowladda Masar. hay-adaha amniga ee dowladda Mareykanka ayaa qorshuhu wuxuu yahay in ay baaritaan ay ku sameeyaan gaadiidka ka gudbaya barta Netzarim loo yaqaano. Netzarimna waa halka kala qaybisa koonfurta iyo waqooyiga. halkaas ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Israa'iil muddo bilooyin ah iyaga oo u diidanaa dadka shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda. heshiiska oo dhaqan galay maalintii Axadda ee la soo dhaafay ayaa qorshuhu wuxuu yahay inay dib u soo laabtaan dadkii ka barakacay guryahooda oo ku yaala koonfurta. sida wararku ay sheegayaan shirkadaha Masar iyo Mareykanka laga leeyahay dhanka amniga ayaa kontrooli doona ama la socon doona dhammaan gaadiidka soo laabanaya, gaadiidkaasi dadka saaran iyo waxyaabaha ay sidaan. sida wararku ay sheegayaan marka shirkadaha amniga ee Mareykanka ka imaanaya ilaa 2 ayay gaarayaan. hal shirkadna waxay ka imaanaysaa dhinaca iyo dowladda Masar
sida qorshahu uu yahay, iyada oo dadka ku laabanaya dhinaca waqooyiga aan baaritaano lagu samayn doonin, laakiin dadka dhinaca koonfureed u gudbaya ayaa wararku ay sheegayaan si gaar ahaaneed in loola socon doono. arrintaasi maxay kula tahay adiga? qaybta hoose aragtidaada ku reeb, waad mahadsan tahay.